filimku wuxuu ku bilaabanayaa nin shiinaysa oo dhex jiifa qalbi la ebara oo lahayn iridiya daaqad markii uu tabtay gidaarka wax soo baxay badhan yar kadib batoonkeeda ayuu aad yahay tabanaya qolka dhan wuxuu noqonayaa wadabata miidhan markastoo bato riixana qolka yar ugu soo tuuraya shay mar cadee baa la soo tuuraya mar dhahaan baa la soo tuuraya iyo waxyaabo kale oo badan haddii hal baton taabtana waxa la siinay hal shay sidaas ayuu ku ogaaday in batoon kastoo taagan yahay hal shay batoon kale ayuu taabtay gaadhiga ka soo maxay lugta ayuu ka jiray asagana wuxuu bilaabay inuu qayliyo saacada ka bacdi ninkii wax la soo tuuray shay kala duwan hal bar soo qoostay ayuu bilood ku tuuraya badhin isaga waxaan la soo tuuraya cunto aad ayuu farxaya maxaa yeelay waxa ay baahi saacado badan kadib wuxuu damcay inuu taabiyo batoon ku yeero dhulka kadib mid kamid ayuu taabtay waxaanu furmay albaab waanu farxay laakiin farxad darteed waxay loobay batoonkii kadib si uu raadiyay wuxuu taabtay mid waxaana soo baxay Afrikaan madow cararaya sidoo caray waxa ka baxay darbiga kale hadana batoon kale ayuu taabtay roob ayaa ku soo da'ay ugu dambeyntii batoonkii ayuu helay albaabkina ayaa furmay kadib batoonkii ayuu taabtay waxaanu furmay albaabkii waanu cararay laakiin albaabku iska xidhay isku dayay labadan sidoo kale albaabku xidhmay kadib wuxuu ogaaday inta batoonkina riixayo in albaabkuna furnaanayo kadib isku day badan ayuu sameeyay si albaabku furmo laakiin isku dayay soo dhanna way khasaareen fikradiisa ugu dambeysay waxa ay inuu gaariga raaco uu kadib batooka taabto uu kadib sa gaariga ku raaco albaabkana galo laakiin fikradana sidoo kale uu ku guuldareystay ugu dambeyntii wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay shay culays leh si albaabku furmo wuxuu soo qaatay haan ka samaysan dhoobo iyadana uu saaray waa riix meeyay kadib waxa ku soo kacday fikrada inuu haanta buuxiyo kadib wuxuu riixay batoonka cuntada batoonka soo qorata ayuu ka yaqaan batoonada oo dhan kadib markuu cuntada ka buuxiyay ayuu surqaad laakiin uu qaadi waayay sababta uu buuxsamay kadib wuxuu shirka soo gur laakiin gacanta ayuu gal weeday waxaanu soo soo guray midmid taal badan kadib waa ku guuleystay inuu khafiifiyo haanta ayuu soo qaaday markuu soo gaaray batoonadan wuxuu garan waayay batoonkii ku ahaa mid kamid ah batoonada ayuu riixaya waxaana ka soo baxay ninkii madooba sidaas ayuu haantii kaga jibinaya ninkina way dhamaatay oo haantii ayaa ka jabtay kadib cuntadii ayuu isku rarakaybay oo baalkii ayuu saaray laakiin uu ka soo dhaxbaxay inta kadib wuxuu isku dayay inuu caag saaro oo kadib koolayo sidoo kale fikradiisu uu ku guuldareystay kadib wuxuu iska cunay kinin xanuun baabiya sababta juugo badan ayaa ku soo gaadhay sababta markuu soo saaray baabka dhabarka ayuu ka dhacay albaabku kadib uu iska seexanaya markuu soo kacay oo soo cadayo markuu cadayo ayuu raadinaya biyo uu ku cadayo kadib ciidka ayuu boodiyo badan ayuu taabanaya kadib si khalad ayuu baton kale u taabanaya waxaana soo baxaya xarig kadib halkaas ayuu fikrad ka sameeyay fikradaas waa inuu xarig qabsado kadib batonka taabto uu kadib si calaadul albaabku u galo kadib fikradaas uu ku guuleystay waana shaqaysay fikradaasi laakiin nasiib darro wuxuu ogaanayay inuu ku dhex yahay meesha albaabka soo baahan furay kadib isna wuxuu ku laabanaya qolkaas intaan albaabku xidhan kadib uu xanaaq aad u weyn leh waxaanu darbanaya gidaarka waxaanu soo baxaya furay laakiin furuhu ma mid uu iska qabsan karo oo waa sidii albaabka kale oo batonkaas intuu daaran yahay ayuu furuuna muuqanaya waana ka dagta xaalku sidii hore waa inuu helo waqti furu muuqdo albaabkana uu furan yahay xarka ayuu soo qaatay waxaanu saaday xagga furaha laakiin uu awoodi waayay waxaanu eegay bahan meesha taalay kadib fikrad ayuu ka dhex sameeyay kadib markii uu isku aaday waxaanu qosday xarigii baalkina wuxuu ku taabtay batankii kadib furay ayuu ku soo baxay albaabkina sidaas ayuu ku galay aakhirkii على طول waxaanu bilaabay inuu furo albaabka laakiin albaabku furmaayay sababta furo kale ayaa dhakada ka xidhan waxaan loo baahay number 3 kadib waqtiga ayaa ka dhamaaday albaabkina ka soo baxay kadib niyad ayaa ku dhacday kadib baalkii hustay ayuu ku tuuray darbiga waxaana baash ku dhacay button waxaana soo baxay ninkii madowga Afrikaanka waxaan wajhiga qoran 3 xaraf kadib isna wuxuu sameeyay 3 isku day oo markasta wuxuu soo galinay hal lambar sidaas ayuu ku guuleystay uu ku furay albaabkii kadib markuu albaabkaas furmay waxa xidhnay albaabkii dambe kadib meeshaas ayuu isna ku galay go'doon kadib niyad jab ayaa ku dhacday isagoo isku ooyay waxaan soo xustay nimcadu ka haystay qolka weyn kadib wuxuu dareemay hawo soo galisoo dhanka midig kadib hawada ayuu raacay albaabkiina ayuu furay kadib waxa arkay meeshta albaabkii kadib albaabkii ayuu ka baxay waanu cararay sidoo orday wuxuu dareemay inuu dhintay laakiin wuxuu si dhameystiray orodkiisii ilaa markii dambe ka arkay albaabkaas ayaanu galay isagana waa isbedelay timiisina u dheeraadeen dharku xinaamadiisu waa isbedeleen qolkan uu ka dumay qolka hore sababta markaa soo tabta badhinkaas ku yaala darbiga waxa dunida ka dhacaysa shay isna dareemay wax ka dhacaya dunida intaas ka baad wuxuu filim ku gudbaya qoys jooga waddanka Mexico qoyskan waxa ka warwarsanay wiilkooda dheelaya Mexico hooyadiina bi wax ku oranaysa wiilku la dheeliyo uu ka weyn yahay waanu ka wadweyn yahay odayguna wax ku oranaya khibradda ayaa ka muhiimsan kadib wax waada meesha boxerka si uu isku soo diyaariyo isla markaa boxerka wiilkiisa oo la dhaho Antonio asxaab isla dhaga tafasilka ayaa fuudeynayay wiilkay la dheeliyaan aabihi waxaana ku oranaa aabaha mid guul daran ana waxa tahay mid aan guuleysan isla markaana walaashay imaansa dugsiga waxaana ka xanaysaa wiilka si ay soo daawadaan ciyaarta ugu dambeyntii waxay soo gaadheen ciyaartii waxaana fadhiisan kursi ugu horeeya walana ciyaartii biloobin kooxdii koobaad ay soo galaysa waxaana salaamaysa taageerayaasha kadib waxa soo galaya Antonio aabihiis kadib ciyaartu waxa ku bilaabanaysa sax maansal leh Antonio aabihi ninkii la jiray ay ciyaarta dheelaya markii dambe ku goomanayaan oo ciyaarta marka dambe ku goobabanayaan oo laba ay ku qabanayaan kadib saaxiibkii ku codsanayaan soo gal ciyaarta oo ku qabta mid laakiin Antonio aabihiis uu diidiyaa kadib wuxuu sameeyay kaartuus ugu dariyo labadiisaba ugu dambeyntii wuxuu leeyahay fursad saaxiibkii ku furto si uu bedelo Antonio aabihi markuu ciyaarta soo galay markiiba hore ay ka qabteen iyagoo isku dayeen dilaan ayuu ninkii qol ku jiray taabanaan badhin
isla markaasna Antonio Bis waxa dheeraanaysa qoorta waxaana dishay ninkii isaga rabay kursi ku dhufto iyo kii hayaba ninkan wuxuu ku jiray qolka wax mana dhici maayaan waa uu yaabanayay haddana wuxuu dadkii boxerka dheelayay dadkii xaakimka cunugii yara xataa sidigi ayuu isku tumay isagu haddana batoon kale ayuu taabtay oo bombale meel taagnaa iyo ka soo baxay olol haddana marka laba mid kala taabtay nin miskiin oo aydiis haystay ayuu ku diray aydi isagoo niyo jabay oo rabay inuu sidhibo iyo arkay iftiinka mani xagga sare waxaanu dareemayay inuu qolka furan yahay xagga sare isna xagga batoonada ka riixay la wax ka dhigtay jaran markastoo batoon taabtaysana dhulka ay wax ka dhacayaan laakiin isagu ma oga xayawaan ayaa dhintay ubax ayaa furmay maroodo ayaa dhimanaya markastoo koorsi socdana dhibaatada banaanaysa ilaa dhibaatadii gaadhay xayawaanada markii in badan socdana wuxuu dareemay garkiisa ku batay sidoo kale aanu baahnay badhabadan uu ku soconayo ee sida shimbiraha uu iskaga duuli karo sidoo wuxuu ugu dambeeyay qolkaana soo aragtaan xagiisa dambe wax ka muuqda qaaradii adduunka oo dhan qolkaasna wuxuu leeyahay hal batoon oo quraata intaas ayaanu ka filimkeennii filimku wuxuu ku bilaabanayaa nin shiinaysa oo dhex jifa qol bila ebara oo lahayn irid iyo daaqad markii uu tabtay gidaarka wax soo baxay badhan yar kadib batoonka ayuu aad yaawaan u taabanaya qolka dhan wuxuu noqonayaa wadabata miidhan markastoo baton riixana qolka ayaa lagu soo tuuraya shay marcadee baa la soo tuuraya mar dhahaan baa la soo tuuraya iyo waxyaabo kale oo badan haddii hal baton taabtana waxa la siinaya hal shay sidaas ayuu ku ogaaday inuu batoon kastoo taagan yahay hal shay batoon kale ayuu taabtay gaadhiga ka soo maxay lugta ayuu ka jiray asagana wuxuu bilaabay inuu qayliyo saacada ka bacdi ninkii wax la soo tuuray shay kala duwan hal bar soo qoostay ayuu bilood ku tuuraya badhan isaga waxaan la soo tuuraya cunto aad ayuu farxaya maxaa yeelay waxa ay si baahay saacado badan kadib wuxuu damcay inuu taabiyo batoonka ku yaala dhulka kadib mid kamid ayuu taabtay waxaanu furmay albaab waanu farxay laakiin farxad darteed waxay loobay batoonkii kadib siduu raadiyay wuxuu taabtay mid waxaana soo baxay Afrikaan madow cararaya siduu caray waxaan ka baxay darbiga kale haddana batoon kale ayuu taabtay roob ayaa ku soo da'ay ugu dambeyntii batoonkii ayuu helay albaabkina ayaa furmay kadib batoonkii ayuu taabtay waxaanu furmay albaabkii waanu cararay laakiin albaabku iska xidhay isku dayay labadana sidoo kale albaabku xidhmay kadib wuxuu ogaaday inta batoonka riixayo in albaabkuna furnaanayo kadib isku day badan ayuu sameeyay si albaabku furmo laakiin isku dayay soo dhanna way khasaareen fikradiisa ugu dambeysay waxa ay inuu gaariga raaco uu kadib batoonka taabto uu kadib saa gaariga ku raaco albaabkana galo laakiin fikradana sidoo kale uu ku guuldareystay ugu dambeyntii wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay shay culays leh si albaabku furmo wuxuu soo qaatay haan ka samaysan dhoobo iyadana uu saaray waa riixmeeyay kadib waxa ku soo kacday fikrada inuu haanta buuxiyo kadib wuxuu riixay batoonka cuntada batoonka soo qorata ayuu ka yaqaana batoonada oo dhan kadib markuu cuntada ka buuxiyay ayuu shirqaad laakiin uu qaadi waayay sababta uu buuxsamay kadib wuxuu shirka soo gur laakiin gacanta ayuu gal weeday waxaanu soo guray midmid taal badan kadib waa ku guuleystay inuu khafiifiyo haanta ayuu soo qaaday markuu soo gaaray batoonadan wuxuu garan waayay batonkii ku ahaa mid kamid ah batoonada ayuu riixaya waxaana ka soo baxay ninkii madooba sidaas ayuuna haantii kaga jibinaya ninkina way dhamaatay oo haantii ayaa ka jabtay kadib cuntadii ayuu isku rarakaybay oo baalkii ayuu saaray laakiin uu ka soo dhaxbaxay inta kadib wuxuu isku dayay inuu caag saaro oo kadib koolayo sidoo kale fikradiisu uu ku guuldareystay kadib wuxuu iska cunay kinin xanuun baabiya sababta juugo badan ayaa ku soo gaadhay sababta markuu soo saaray baabka kale dhabarka ayuu ka dhacay albaabku kadib uu iska seexanaya markuu soo kacay oo soo raanay cadayo markuu cadaydo ayuu raadinaya biyo uu ku cadaydo kadib ciidka ayuu boodiyo badan ayuu taabanaya kadib si khalad ayuu badan kale u taabanaya waxaana soo baxaya xarig kadib halkaas ayuu fikrad ka sameeyay fikradaas waa inuu xarig qabsado kadib badan taabto uu kadib si calaadul albaabku u galo kadib fikradaas uu ku guuleystay waana shaqaysay fikradaasi laakiin nasiib darro wuxuu ogaanay inuu ku dhex yahay meesha albaabka soo baahan furay kadib isna wuxuu ku laabanaya qolkaas intaan albaabku xidhan kadib uu xanaaq aad u weyn leh waxaanu darbanayaa gidaarka waxaanu soo baxaya furay laakiin furuhu ma mid uu iska qabsan karo oo waa sidii albaabka kale oo batankaas intuu daaran yahay ayuu furuuna muuqanaya وانا كادك حالكو سيدي هوري وانو هلا وقت فرو مقدو الباب كانوا فرن yahay xarka ayuu soo qaatay waxaanu saada xagga furaha laakiin uu awoodi waayay waxaanu eegay bahan meesha taalay kadib fikrad ayuu ka dhex sameeyay kadib markii uu isku aaday waxaanu qosday xargii baalkina wax ku taabtay batankii kadib furay ay ku soo baxay albaabkina sidaas ayuu ku galay aakhirkii على طول waxaanu bilaabay inuu furo albaabka laakiin albaabku furmaayay sababta furo kale ayaa dhakada ka xidhan waxaan loo baahayay number 3 kadib waqtiga ayaa ka dhamaaday albaabkina ayaa ka soo baxay kadib niyad ayaa ku dhacday kadib baalkii hustay ayuu ku tuuray darbiga waxaana baash ku dhacay button waxaana soo baxay ninkii madowga Afrikaanka waxaan wajhi ka qoran 3 xaraf kadib isna wuxuu sameeyay 3 isku day oo markasta wuxuu soo galinay hal lambar sidaas ayuuna ku guuleystay uu ku furay albaabkii kadib markuu albaabkaas furmay waxa xidhnay albaabkii dambe kadib meeshaas ayuu isna ku galay go'doon kadib niyad ayaa ku dhacday isagoo isku ooyay waxaan soo xustay nimcadu ka haystay qolka weyn kadib wuxuu dareemay hawo soo galay soo dhanka midig kadib hawada ayuu raacay albaabkina ayuu furay kadib waxa arkay meeshta albaabdii kadib albaabkii ayuu ka baxay waanu cararay sidoo orday wuxuu dareemay inuu dhintay laakiin wuxuu si dhameystiray orodkiisii ilaa markii dambe ka arkay albaabkaas ayaanu galay isagana waa isbedelay timiisina u dheeraadeen dharku xinaamadiisu waa isbedeleen qolkan uu ka dumay qolka hore sababta markaa soo tabta badhinkaas ku yaala darbiga waxa dunida ka dhacaysa shay isna dareemay wax ka dhacaya dunida intaas ka baad wuxuu filimku gudbayaa qoys jooga
waddanka Mexico qoyskan waxay ka warwarsanayeen wiilkooda dheelaya Mexico hooyadiina abi wax ku oranaysa wiilku la dheeliyo uu ka weyn yahay waanu ka wadweyn yahay odayguna wax ku oranaya khibradda ayaa ka muhiimsan kadib wax waada meesha boxerka si uu isku soo diyaariyo isla markaa boxerka wiilkiisa oo la dhaho Antonio asxaab isla dhigata fasalka ayaa fuudeynayay wiilkay la dheeliyaan aabihii waxaana ku oranaa aabbaha mid guul daran anna waxa tahay mid aan guulaysan isla markaana walaashay imaansa dugsiga waxaana ay kaxaynaysaa wiilka si ay soo daawadaan ciyaarta ugu dambeyntii waxay soo gaadheen ciyaartii waxaana fadhiisan kursiga ugu horeeya walaalay ciyaartii biloobin kooxdii koobaad ay soo galaysa waxaana salaamaysaa taageerayaasha kadib waxa soo galaya Antonio aabihiis kadib ciyaartu waxa ku bilowmanaysa sax maansal leh Antonio aabihi ninkii la jiray ay ciyaarta dheelaya markii dambe ku goomanayaan oo ciyaarta marka dambe ku goobabanayaan oo laba ay ku qabanayaan kadib saaxiibkay ku codsanayaan soo galo ciyaarta ku qabta mid laakiin Antonio aabihiis uu diidiyaa kadib wuxuu soo sameeyay kaartuus ugu dariyo labadiisaba ugu dambeyntii wuxuu helay fursad saaxiibkii ku furto si uu bedelo Antonio aabihi markuu ciyaarta soo galay markiiba hore ay ka qabteen iyagoo isku dayeen dilaan ayuunkii qol ku jiray taaban badhin isla markaasna Antonio aabihiis waxa dheeraanaysa qoorta waxaana dishinkiisa isaga rabay kursi ku dhufto yikii hayaba ninkan wuxuu ku jiray qolka wax mana dhici maayaan waa yaabanayay haddana wuxuu dadkii boxerka dheelayay dadkii xaakimka cunugii yara xataa sidigi ayuu isku tumay isagu haddana batoon kale ayuu taabtay oo bombale meel taagnaa ka soo baxay olol haddana marka laba mid kala taabtay nin miskiin oo aydiis haystay ayuu ku diray aydii isagoo niyo jabay oo rabay inuu sidii booyo arkay iftiinka mani xagga sare waxaanu dareemayay inuu qolka furan yahay xagga sare isna xagga batoonada ka riixay wax ka dhigtay jaran markastoo baton taataysan dhulka ay wax ka dhacayaan laakiin isagu ma oga xayawaan ayaa dhintay ubax ayaa furmay marooda ayaa dhimanaya markastoo koor socdana dhibaatada banaanaysa ilaa dhibaatada gaadhay xayawaanada markii in badan socdana wax uu dareemay garkiisa ku batay sidoo kale aanu baahnay badbadan uu ku soconayo ee sida shimbiraha uu iska duuli karo sidoo wuxuu ugu dambeeyay qolkaana soo aragtaan xagiisa dambe wax ka muuqda qaaradii adduunka oo dhan qolkaasna wuxuu leeyahay hal baton oo qulata intaas ayaanu ka filimkeennii